sheegtay gabadheeda in ay u wado wiil aad iyo aad u lacag badan oo ay ka baratay facebooka ayna rabto in ay wiilkaas ogolaato gurkiisa uuna gey doono wadamada reer galbeedka wadanka ugu quruxda badan. gabadhii waxay tiri marabo nin lacag iyo mansabka aad ka sheegaysid wato, waxaana rabaa nin aan diin iyo akhlaaq ku raaco anigoo tixgelinaya amase raacayo sunnadii nebiga sallallahu calayhi wasallam. hooyadii meeshii ayay aad iyo aad uga xanaaqday, ayeeyadii gabadha soo koriday aad ugu xanaaqday oo dhahday adigaa gabadheydii fasahaadiyey, waa kaasaa wadanka ugu quruxda badanaa la gey lahaa, fursadeedii dahabiga ahayd ee isdhaafsiisay. haddaba maxaa dhici doono? ninkan dhahaya hala isbaaro oo ayada lacagta ay ka qaaday gabadheeda dheeda waa ina caafimaad isu soo marsiisaa meel walba ah, muxuu soo wadaa? waa qiso yaabkeedii ama kaageeda wadato. fadlan ila daawo adigoo aad iyo aad u mahadsan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتك كحرن أمسونا وإذن سلامي ملكستو جوكتان سو دوادا ومركلي مقال كلو عصب وفيديو كلو عصب أصحابتا إلى جوكتي waxaad leeyahay waa mahadsantihiin qof kastoo subscribe ii dhahay, qof kastoo hal mar ii daawaday, kii leeg ii siiyey, dhammaantiin abaal waa inkaga hayaa. ilaahay abaalkiina ha idiin gudo. videogeyga hadduu haddi kadib kusoo gaaro oo aad aragtid waxaa kaa codsanaa walaal inaad ka mid noqotid asxaabteyda ood kusoo biirtid janalkeyga. wixii qalado igu aragtidna ay dhahdid waxaas oo ku qaldan tahay, bili aadana ahay, waxaa maqaldamo waa ilaahay. qisadeena maanta haddaa u guda galo waxaa waaye hooyadan waxaa waaye islaamaha isla waaweynoo kibirka badanoo aan caadiga ahayn. dowladda waxay ka haysaa xil aad iyo aad u sareeyo. hal gabar ay dhashay, halkeedii gabarna ayadoo yaree dayacday. markay gabadheedii dayacday waxaa soo korsatay ayeedeed aabaheed dhashay waxay kusoo korisay nolol aad iyo aad qurux badan. diintee soo bartay, qur-aanka xifdisiisa ayadoo yar, iskuul jaamacad heer saraa la gaarsiiyey. gabar diin akhlaaq ixtiraam kusoo kortay waaye. hooyadan isla waaweyn iyo istustus iyo waxaan ku dhahay lacag wixii ah way agaalaan. gabadhan aabaheed ama islaanta ninkii qabana wadamadaas qurbuhu asagana jira oo ka shaqeeya. bis waxaa dhacday islaantan inay facebook iska bartaan wiil dhalinyaro ah, kadibna oo u sheegay inuu guur rabo. markaasoo waxay ku tiraahday gabadheeda joogto, gabadheeda ku baraa, u sharaxday adig gabadheeda tafsiil oga bixiday. wuu ogolaaday, lacagu usoo diray, wuxuu ku yiraahday gabadhaada waa isguursaneynaa, waa inay baaris soo martaa, inay caafimaad qabto iyo in kale iga soo jeekin. okay tiri islaantii. gabadhii soo aaday, marka u timid waxay u sharaxday ninkii facebooka ka baratay inuu yahay wiil carab ah, wiil fiican, akhlaaq fiican, lacag heesto, wadanka uu qatarsan degan, yurub iyo reer galbeedka wadan kamida joogo. gabadhii warkii markay ku aqrisay ee tiri lacagtaanoo isoo diray, waxaa rabaa inaa baaris kusoo martid oo wiilkaasna aa iga ogolaatid. gabadhii waxay tiri wax makuu sheegaa, wax baaris liiraa oo aan maraayo male. ninkan aa ii wadid oo aad leedahay isheeg lacag iyo mansab uu leeyahana maku dooranayay. mansab iyo lacagtiisa marabo. nin hadaa dooranaya diin iyo akhlaaqaa ku dooranaya. xadiiska nebiga ahaay haddii aa qof u guurinaysiin diintiisa man tardowna diinahu waquluquhu fasawijuuh. adi islaantan waxaa ku dhahay warkii waa mari waaye. gabadhi si kaste kor martay, hoos martay, ugu sharaxday, waa ka diiday. adi miinkay ka cuskatay, waa isku xanaaqeen. adi waxay soo aaday gabadhi ayeeyadii ee soo koriday. markaas ayeeyadii ku qaras baxday ee tiri adiga gabadheeda haleeyay, adiga waa wax dhaqanka ka lumiyey, waa saan waaye, fursadeedii dahabigaada iska khasaarisay, wadamadaas yurubaa la gey lahaa, saanee yeeshay kan. adi islaantii waxaan ku dhahay ku qaras baxday. bis maamadii iska baxday. maalintii dambe shaqada waxay tagtay ayadoo aad iyo aad u xanaaqsan. saaxiibteeda aragtay, waxay ku dhahday maxaa dhacay? markaasay dhahday nin saasa gabadheedii iga soo doontay, kadibna way diiday, lacagtii xataa waa hayaa.
islaantii yaa soo boodto saaxiibteedeed waxay tiri war gabadheedaa baraa waa fursad qaali baa gabadhaada deediida aniga igu soo wareeji okay awalba facebook laga bartay ciwaanadii la iskula wareejiyey waa loo sheegay gabadhaana ku rabtaa lagu baraha layiri gabadhii sidai isku barteen cidaan jaaniska iska khasaaranina lacagtii waxayba gabadhii 5 daqiiqa ninkee la xiriirtay lacagtiiba waxay soo martaba isbaaris jirkeedan meel walba xubnaheeda ilaa ninkan waa nin wax u qarsan yihiin cid ogna ma lahan islaantaana lacag ka carartay qofka hadee lacag hamidiisa noqdo waxa waa god xataa uu ku dhacaa marka dambe waxaa dhacday marka gabadhii taxliilkee soo martay ama baaristii jirkeeda caafimaadka ahaa natiijadii ama waxaa ku dhahay warqadihii yani caafimaadkeeda oo soo baxeena u dirtay ninkii yani waa imaaday gabadhiyaa loo qidaaba ama lagu maxaa lalahaa oo soo doontay wuxuu yiraahday yani wadamadii aan ka imaaday aan gabadhaan geyna waa la aaminay ninkii cidoo lacag uu ku faraqay gabadha wadamadaas soo tustusa intuusa arooskan ilan ka hor waa israaceena haye waayahay fagataxaa lahaa si gabadhii garoonkii ka duuleen markii wadankii kale ee saa u tageenbo ninkii waxaa ku dhahay wantadu ahaa waa la raadinaa dhakatab lagu qabtabo maxaa dhacay waa gabadha indhihii taagtay maxaa taa mushkiladan waxaan ku eray meesha waxaa la yiri ninkan waaba nin weyn oo la raadinayo bini'aadanka xubnihiisa ooba maxaa la yiraahdaa ka ganacsadaa gabadhiinana wuxuu caafimaad ku marsiinayay inay caafimaad qabtay in kale iskaga baaray inuu kaliyaheedii jirkeeda bolbol u kala furo cidii waxaa ku dhameeshay ama kaag indhihii la wada taagay naagtii waxaan ku dhahay ilaahay u mahadnaqda gabadhii ilaahay u shukriday hadii caafimaad qabta gabadheedii tiri islaantii kaleeto kibirka badneedo gabadhii maxaa lalahaa ayeedeed soo korida dhashay ayadana markii warkii loo soo sheegay waxaa ku dhahay meeshii waxay tiri alla gabadheeda ilaahay badbaadinay gabar yacni diintii iyo akhlaaqda kusoo barbaartay ahayd maxaa lalahaa oo ilaahay ku wanaajiye ahayd way iga saxneed saan waa ilaahay usoo laabatay yacni ayadana u toobad keentay halkaas ayayna qisadeena ku gabangabowday qisooyinkan soomaalida xataa waa la sheegaa ina gabdho saas yani xubnahooda loo gato yani qofkii hadii aad aqooninin oo kale horta hadaaba aragtid nin ku dhahayo caafimaadkaaga dhan iyo jeekin waa inaa shaki ka qaadid asagana caafimaadkaaga soo jeekin yani cudurada xun oo kaleeto oo yani maxaa lalahay aidiskoo kale waxyaabaas in iska wada baaro qof kastay u fiican tahay laakiin caafimaadkaaga maxaa lalahaa beerkaaga ii baar oo kelidaada ii baar oo maxaa lalahaa meel walba ii baar hadoo ku dhahay inuu boolbool kuu gadanaa waa inaad badareentidooba ka carartid balaayada marka waxaan dhihi lahaa waalidiin badan waxaa jiraan lacag ilmahooda god ugu ridaan lacagta ma ahan wax sii jiraayo aadina aan soo dhexgalee marka lacagta ma ahan wax sii jiraayo ma ahan yani wax laisku haley kara lacag weligaa adi lacag ha isku haleynin lacagta waxaa wax la helo la waayo meeqa taajiriinaha waxaa ku dhaha maanta faqiir noqotay meeqa faqiiraha taajir noqotay marka lacag waalidow ilmahaaga ha u dilin god ha ugu ridin maxaa layiraahdaa sheeg hana ka fekerin gabdho badan oo ayadana sidaas oo kale yani ninkan lacag uu leeyahay gaari cad ku socdaa maxaa la dabaq hebel oo joogaa abaa wax u qarseen ma ogid waxaa ku dhihi lahaa mid oo yani ay isfahantiino aad taqaantid akhlaaqdiisa diintiisa maxaa la ixtiraamka waalidku u haayo sidoo dadku ula dhaqmo aad taqaanid walaalay la macaamil halkaas ayaan kusoo gabagabeynaa qisadeena waxaan idin leeyahay inta aan ku kulmi doono muuqaalka xigo ama qisadan qisadii xigto salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu